soddon kilomitir waqooyiga Nairobi waxaa dhaca magaalo yar oo loogu yeero Juja laguna naanayso Jujamaika. Magaaladan ayaa hoy u ah dad ay u badan yihiin arday dhigata jaamacad ka mid ah jaamacadaha ugu weyn dalka Kenya ee loo yaqaano Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, loona soo gaabiyo JKUAT. Waxaan maqlay in group arday Soomaaliyeed ah oo iskooda isku abaabulay ay guryo ka kireysteen magaaladaas kana mid yihiin ardayda halkaas ku nool. Waxaan safar qaadanayaa 40 daqiiqo u galay magaaladaas si aan u soo wareysto ardayda Soomaaliyeed wax badan uga ogaado qaabka ay u nool yihiin. Ganjeelkan waa guriga ay ku nool yihiin ardaydan la magac baxday Juja Boys. Waxaan gudaha u gali doonaa gurigan si aan wax uga ogaado qaabka ay u nool yihiin ardaydan Soomaaliyeed. Ardaydan Soomaaliyeed oo ah kuwa rag u badan ayaa qolalka si wada jir ah u kireysta sida 2-2, 3-3 ilaa iyo 4-4 sifo ay u qaybsadaan lacagta kirada guriga. Gurigan aad haatan arkaysaan waxaa degan 3 qof oo ardayda ka mid ah. Arinta kale ee cajiibka ay sheegeen ayaa ah in ardayga markii waxbarashadiisa dhameysto booska iyo alaabtaba ku wareejiye arday cusub. Qaar ka mid ah ardaydaas ayaa sheegeen inay dhawaangal yihiin halka kuwa kalena ay ugu yiraahdeen bilo kadib booska ayaan banaynaynaa. Cabduhaab Ismaaciil oo ah madaxda ardaydan Soomaaliyeed ee la magac baxay Juja Boys ayaan marka hore weydiiyay sida uu ku dhashay fikirka in arday Soomaaliyeed ay meeshan soo degaan. waa maasantahay Fawzi, waan ku dhawahay Kalson TV. fikirkan in lagu noolaado magaalada banaankeeda meel magaceedu yahay Juja oo ay ku taalo jaamacadda JKUAT in lagu noolaado wuxuu ka imaaday fikirka ardaydii horaan u dhiganaysay jaamacadaha oo khibradooda ku aadan jaamacadda laga faa'iideystay in lagu talagalo ama lagu tashto jaamacadda aad ku biirayso markaad iskuulada secondary-ga aad ka soo baxdo. annagana markaan imaanaynay jaamacadda markii u horeysan magaalo imaan ma ahayn, nasiib wanaag marmar holidaydan u imaan jirnay. markaas ayaan kuwa asxaabna oo jaamacadaha dhiganayo aan u imaan jirnay. marka xoogaa macluumaad si horeeyay ayaan ka haysanay jaamacadda laftarkeeda iyo nolosheeda iyo qaab waxbarasheedkeeda. kaas ayaa noo sahlay inaan go'aansano inaan ku soo biirno jaamacadda ku taalo magaalada banaankeeda. Waxaan sidoo kale Cabduhaab weydiiyay sababta ay Juja uga doorbideen Islii oo ay Soomaali badani ku nooshahay. Waa kan mar kale asagoo su'aashaas iga jawaabaya. ugu badnaan ardayda meeshan u imaaday inay wax ka bartaan waxay dooq u leeyihiin in jaamacaddan branjigeeda kale oo townka ku yaala Nairobi ay ka bartaan oo Islii ay ku noolaadaan. laakiin aniga iyo dad badan oo asxaabtayda ah waxaan doorbidnay inaan Juja imaano. sababta ugu horeysana ay tahay qaab waxbarashadeedka jaamacadda mainka markii la dhaho magaalada banaankeeda ku taalo iyo jaamacadda townka ku taalo oo Islii laga soo aadayo. qaab waxbarashadeedka wuxuu aad ugu wanaagsan yahay markaad magaalada banaankeeda aad jaamacad u imaato. subaxii jaamacadda u kala hayso, galabta ka imaanayso, habeenkii jaamacadda iyo agagaarkeeda aad ku noolaanayso ayaa kuu sahlayso in markasta jaamacadda ka ag dhawaato. library-ga hadda u baahato jaamacadda aado, kalaasyadii oo habeen iyo maalin nal aad wax ku barato. taasna waxay kaaga sahlaysaa caqabadda ah in dadkii iyo bulshadii ay wada taqaaneen oo Islii ku noolaa aad ku dhex noolayd in ay ka mashquuliyaan waxbarashada jaamacadda. faa'iidooyinka aad ku qabtaan Juja waa inoo sheegtay inay ka mid tahay dhanka iyo waxbarashada. dhanka dhaqaalaha ayadana wax ma nooga taaban kartaa dhanka expense-ga ama cost-ga? ayadana waa mid meesha ku jirto dhanka dhaqaalaha markii loo eego in jaamacadda ay u roon tahay dhanka iyo dhaqaalaha. maxaa yeelay kirada qaabka loogu nool yahay Islii way ka jaban tahay midda halkan. marka jaamacadda banaankeeda haddaa go'aansato xitaa inaad degto waxaa helaysaa guryo ka qiimo jaban kuwa Islii. dhanka cuntada markii loo fiiriyo sidoo kale way ka jaban tahay dhanka Islii in baaxad leh.
marka dhanka dhaqaalaha laftarkeeda way u runta ardayda meeshan ku nool waxaa tahay cabdiwahaab hogaamiyaha dhalinyartan ku nool meeshan Juja caqabadaha dhalinyarta meeshan ku soo gaaro haddii aad wax nooga sheegto maxaa kamid ah caqabadaha badanaa soo gaara waxay tahay maadaama meeshii iskaabulo lagu yahay oo reerka laga soo fogaado in markii taramka ama semesterka uu dhammaado jaamacadda la xiro aanan la sii joogi karin meeshan oo markiiba holidayda hor loo aado inkastoo ay fiicnaan lahayd inay ardayda sii joogaan oo casharkooda iska sii akhristaan oo iska sii dadaalaan oo aqoonta kororsadaan laakiin ardayga markii uu gaaro 3 bilood ama 4 bilood imtixaanka uu dhammaado waxaa qabanayo xiiso u xiisayo reerkii iyo cuntadii magaalooyinka laga cuni jiray iyo dadkii uu la dhaqmi jiray iyo marka taas ayaa keenayso caqabada ugu koowaad caqabada ugu labaad ardayda qaar ma aqaanaan cuntooyinka qaar baa allergic ku ah qaar baa ku xanuunsada maadaama ay ku nool yihiin meelaan xaafadooda ahaynna cunto alaal cuntadii ay rabaan ama caafimaadkooda u fiican inay helina laga yaabaa ay danta ku qasabto cunto alaal iyo cuntadii laga helayo meeshay ku nool yihiin inay ay cunaan caqabada kale oo meeshan ka jirta waxay tahay inkastoo la iskaga noolaan karo meeshan waa meel tuulo ah marka waqtiyada u badan roobka iyo qabowga ayaa saa'ida marka badanaa ardayda qaarna haddii marka hore aadan la qabsanin ama qof aqaan aadan la joogin waxaa u sahlan tahay in marka horeba qabow uu kugu dhaco ku galo axmed bicir xasan oo ka mid ah ardayda dhigata jaamacaddan xarunteeda Nairobi deganna xaafadda ay Soomaalida u badan tahay Islii ayaan weydiiyey sababta uu maanta ugu yimid ardaydan Juja Boys waxaan ka mid ahay ardayda dhigato ku taalo Nairobi townka halkan waxaan usoo qabay waa campus-ka JKUAT waan u imaaday si aan uga faa'iidaysto saaxiibadeyda kale oo iga aqoonsan sida caadi ardayda Nairobi townka ka dhigtaan jaamacadaha dadaalkooda saas uma dheero marka halkan ayaan u soo baxay saaxiibada joogaan Juja campus-ka si ayaga uga faa'iidaysto maadaama ayaga waqtigooda badankiisa ay geliyaan akhris anaga townka Nairobi joogana waqtigana hore kale iyo shaqooyin sidaas ayaan soo baxay Cabdiwahaab ayaa sidoo kale ii sheegay in ardaydan Soomaaliyeed intooda ugu badani ay guryahooda wax ku karsadaan oo ay hoteelada marmar cunto u raadsadaan inkastoo ay ku xiran tahay dooqa qofka laakiin aniga ahaan ilaa markii jaamacadda aan ku soo biiray ilaa markii ugu dambeysay 2019 markii qaab waxbarashadeedka loo bedelay qaabka online-ka oo Islii iska joogay inta ku horeysay aniga iyo intii soo martay arday aan isla deganin waxaan sameyn jirnay inaan guriga anaga aan ku karsano qol oo iska leh musqushiisa iyo jikadiisa iyo meel weelka lagu dhaqo intaba leh inaan iskaga noolaano meeshan aan ku karsano maxaa yeelay nolosha bannaanka markii aad dhahdo wax baan ka soo cunayaa inkastoo qiimaheeda ay jaban yihiin laakiin noocyo kala duwan oo cuntada ah ma helaysid sidii Islii marka cuntadii aan naqaanay anaga oo Islii inaan ku karsano guriga aan deganahay taa ayaan sameyn jirnay walow ay jiraan arday badan oo waxba aan karsan jirin jeebkooda isticmaali jiray si ay bannaanka wax uga soo cunaan arrintan ayaan u arkay mid xiisaheeda leh sababtoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed waliba kuwa iska uploada ah ayaa u badan kuwa aan aqoonin cunto karista amaba aan qabin inay sax tahay in ninka ragga cuntadiisa karsado waxaan jeclaystay inaan la kulmo dhalinyaradan oo cuntadooda karsanaya nasiib wanaag waxaan haleelay Siyaad oo ka mid ah ardayda dhawaan dhamaystay jaamacadda balse aan wali ka guurin Juja waa kan Siyaad oo maalin daal badan kadib shaahiisa karsanaya sometimes
siyaad kusoo dhawow Calson TV waxaad tahay mid ka mid ah ardayda ku nool Juja Town waxaan rabaa inaad wax yar nooga taabato nolosha Juja waa mahadsantahay Faarax Buusi ku dhawaad Calson TV aad iyo aad u mahadsantahay nolosha Juja wallahi waa balaaran tahay ups and down ay leedahay hadii aan ku bilaabo xaaladaha aan taqaana kala kulanay nolosha waxaa ka mid ah adigoo gurigooda ka imaaday oo weligaa jika aan gelin dabuliga afufin ay intii maanas aan faad marka imaato then cuntadii oo maxayda lagu karinayay ma la qabsan kartid qaarkood waa dad ajnabi baa karisay hilibka noocii ma sheegi kartid soo dadka ku khasbi inaa baxda isli aad soo adeegato aa cunto karsato so mostly marka dadkan dhalinyarada meeshan degan laba iyo saddex u deganay so marka gurigi marka saddex ku degan laba ku degan wax ma laga cunto ku kareema dadka marka waxay khasbaysaa in kasta xilligiis inuu galo xilligiis uu kariyo maanta waa maalintaadii yani adiga ku qoran maalina marka waxaa dhacaysaa haddii isbuuc u hore cuntadii buu kariyo isbuuc dambe cid ku karaysa marka allah jikada galwaad jikada gelisa cuntadii la karsanayo personally challenges problem ay qabsatay cunto karsan ka soo qaado maalinka cuntada igu horeysay aan kariyo actual pasta marka basta soo adeegay way taalay Allah saaxiib viazi saan loo jiraa waa la tusay jikadii waa la tusay basta waan kariyay laakiin basta aan kariyay rabo basta dad baqaanaya waqti u baahan inaad wax ka ay barato basta marka way isku dhigtay isku dhigtay marka aniga basta isku dhigtay hadaan soo ay isku dhigay aan keeno dadkii aan keenay fooday mish bilaash ninka cunto karsan karinayo oo caan lahaa فأنا مركب حاسس إيش هو أسكت فيه وين وحش على وحش يسكتون واجد فاكر أنتي تدرينت وانجرنا بس صارت مركب بس أنت كلته فعلا أنا of course صارت شو بدي أعمل سوما دباش إني سكرنا العكرة هنا في كوكر نقطة العكرة والدولة على so مركب then these guys thought أنت اللي في عندك وعونك كفتونا أو of course أنا وهي سوا أنت أخذ علشان ما وقفتي أنا ما بقول لك دتك جدا ما لسه عندي في كورة دتك ما أعرف شو على سوي تبي صور على صوت مركا أنا كرز كذا bit challenging most challenging part that way أنت كذا حوالي culture you know مركا هالكا مركا ما تو جورا أركيسا دت أجنبي بده جلا مشان دين كله دوان دخن كله دوان سو مركا هذه تاني هو غاية ساينا كم فهمت دخن كله marka challenge-kiga ugu weyn waxaa waaye inta dhaqanka of course the language most of these guys Soomaaliya u barana iskuuladeenna waa garanaysaa malista af Soomaaliya lagu hadlaa badanaa gabdhihii of course wax kasta Soomaaliyima laakiin inta markii la imaado Kiswahili mas gacmada ambooda ka garanaysa Kiswahili maxameeda qoynan kijar baa I remember saaxiibka ka hor ismi camal oo kale aan saaxiib رقي مسوقنا صح كا وبحاج كدقي رقي الصومالي كسويل واحد ولا لا هذه واضحة هاي سو نيجا رقي ودونتي محمد أدومي رقي لقى رامو مامي so yes وانت كنيني بس جاي want to see رقي رامو بس رقي رقو عم بحاي على مدة معنا لوقا صح صح أتاكم أودا صح صح مركا I know exactly he's a friend of mine سنة عمر سنة مركا challenges languages شيء متكلم عوامل is mission دقن كم رجال عوامل friend boyfriend قولوا على كيس أبي بس كلا صعدت فما لها هذا وحيد راحت so then الناس هو زعلان sometimes قبل Somali إذا على كيس نقدر صعدت أنا مرة بدأ أصلا قفك أسقلاسي يجين maybe أسقبات بنتي كسبعين رجعنا Somali كم مرة إسمعني صح so marka ragii Soomaaliyeed plan judgments gabadha adduunka iska kan sameeyay ku sameeyay so waxyaabo waxaa keenaa Soomaaliya set up ki environment aan u jirnay ka soo tagnay meel Soomaaliya marka challenge noocaas waxaan arkay yani inaad dad tihiin meel yani inta isku tagay midoobay Soomaaliyeed oo ayaga wax wada dabirtaan isli badanaa ma aadaan mise waa ka maaranteen oo meeshiinana كويسة هرت islihi ma marno
isli waana cuntada la karinayo badana isli laga keenaa qofka go isli aadaysa weekends oo kale isli aadaysa isli waxaana meelaha maskaxda lagu soo dejisto waana marka galasa ka batan assignment ka bato qashin ka bato weekends kaas badana go to isli sax soo dejisanaysa isli is a home badana anaga home inoo tacmalna when you jam ka isli aad you feel like in a relief grooving habs toma dhaxgashay isli ka marno subaxdii hadda waxaan micnaha ku soo qabtay waqtigaad inaad yani adigoo qadadaada diyaarsanayo inaad ku soo qabtay waqtiyada aad subaxdii aroortii class leedihiin maxaa samaysiin cuntada aadan ka gaarin maxaa samaysiin runta horta meeshan glass ali aadaysaa maybe sometimes habana glass gelaysaa eida gelaysaa marka cunto kale oo culus ma karsano shaah karsanaysaa banaanka dhigaysaa jabaati kasoo qabsani ama wax soo qabsanaysa waxyaalaha kale mukaatiga wax soo qabsani marka cuntooyinkaas camal noocaas aan subaxii ku quraacnaa glass maxaad kaga doorbiteen inaad Juja ku noolaataan isli inaad ku noolaataan oo halkaas jaamacadda ka aadaan waa su'aal fiican sabab badan jira oo Juja lagu hayso qaar ka mid ah some of us course ka qaadanayaan lagama bixiyo city campuska campus laga bixiyo sabab inta hoostaas waa inta keento mid kale waxa waaye waa isli waa iska dhib badan some of us glasses waa laga bixiyaa laakiin xilliga aarta meelis morning waayo jump waa art isli in the morning habeenkii aan taqaan hudina ku daabaya waa subaxii aroortii kala heesaa gaari jamasi gelisa maybe assignment leedahay so always xilli fiican glasskiida tigna laga yaabo marka dad badan inay wax dhibsadaan oo inta door badan ay kartaa dhanka dhaqaalaha hadda tan dhaqaalaha ku soo actually search inta u adag badan inta ku door badan waxa meesha dadkan maxay ka yimaadeen mala faasantahay ee noostan sleeperka inuu dunyada laga yaabo qaraabo amsana qof kale oo external support kale u soo jirin lacag siiyo hala heer ay heestaan markaas markay fiiriyaan calculation estimate qof uu sameeyo waxa uu soo baxayso inay intaqaana Juja qoran karto ama sameyn campus ka sabab baas raxdaan ku nool yihiin hostels whereby maqaayada isaariin iskuulka jaamacad iskuulka ay seexdaan marka dhaqaalahaan meeshan isli aad ugu jabanta ugu dambeyntii waxaa tahay dadka ugu horeeyay ee meeshan aas bilaabaa tahay waxaad ii sheegtay qalinjibintaada inay shalay ahayd xaqiiq aad baan kugu hambaleynayaa inaad gaarto safarkaada ugu dambeyn maxaad leedahay ardayda kale ee hadda kuwa ku jiro kuwa hadda inay kusoo biiraan Juja Boys la rajeynayo وما استبوز الحمد لله شلي يعني وقت الجبي قريش اللي شلوها أنا ما سنت عم بليدا سفر قدرة أدي لبنا لكن الحمد لله دعوة يو متقنا education يو determination a lot of hard work الحمد لله فين اللي كم وأنا فرح سناي حقلوا ما علينا أصحابتي شليتو أدي في الحفلة فربنا نوصل من غرفة بدل جوجا أصل جوجا أنا هو يابد موجود أنا هو يابي ولا شوي qof kale oo xaflad ma sameeyay mara dhalinyaradan inta isku imaatay isku mutaqaanay always we are family qofkii baa xaflada wadaajina shalay oo arkiisay sana intii joogtay ku sheegi karto aad u qurxoon marka oo manaqay ayagana waxaan ku dhiirigelinayaa markaas inay dadaalku meesha ka wadaan qofka walaalkooda dib u haysta ay gala qabtaan academically anything morally hatta financially inay gala qabtaan oo gartaan dadaalka ay sii wadaan inta kale Soomaaliya iman doontaa oo qofkii Juja imaan si boorti leh qof Juja imaan anigu hanti roo maadana family samaysan dhalinyaro walaalo is jecel isgarab hayo isgarab qabanayo oo asaga ka dhigin doono walaalo oo imaan doona marka waxa leeyahay Juja is not bad place dadka ay imaadaan Soomaalidana meeshii cilmooda ku xoojin karaan meeshan waxaan leeyahay waa ku dhiirgelina marka saagdalka wadaan aad iyo aad u mahadsantahay dhalinyartan ayaa sidoo kale geeyay goob yar oo maqaayad ah taasoo ay wax ka cunaan markaysan u suurtagelin inay gurigooda wax ku karsadaan goobtan ayaa ah goobta ay imaadaan ardaydan mararka aysan xaafadda cuntada ku karsan waxay ii sheegeen in goobtan ay kaga doorbideen goobaha kale sababta inay tahay in qiimaheedu uu yahay mid aad iyo aad u jaban dhanka kale ardaydan ayaan ka marnayn siyaasadda jaamacadda oo waxay leeyihiin xubno ku matala dhanka siyaasadda Ahmed Amin oo ah madaxda ardayda heer caalami ee internationalska ayay sidoo kale ii suurta gashay inaan wareysigan la yeesho Ahmed kusoo dhawo Kalson TV waxaa tahay madaxda ardayda internationalka ama ardayda Soomaaliyeed ka wax barata jaamacadahan
marka hore haddii aad inooga bilowdo safarkan meesha kasoo bilowdo. walaal marka hore waan ku salaamay kusoo dhawow xafiiskayga aad baan kaa mahad celinayaa inaad igu soo booqato xarunteeda. sidaa sheegtay magacayga waa Axmed Cabdinaasir Maxamed kuma dheer Amiin. waxaan ahay madaxda ardayda internationalka Soomaalida kelima ahaan arday walba oo wadanka u dhalnin mashruuc ba kasoo jeedo aan wadanka ku madala jaamacadana madax u ahay. safarkeeda hadaan kaa sheekay meesha kasoo bilowday run ahaantii sanad walba jaamacadda wax ka dhacdo doorasho oo ardayda jaamacadda tusaale ahaan jaamacaddeena waxaa la soo gaabiyaa JKUSA oo u taagan JKUAT Students Association. waxay leedahay madaxweyne jaamacadeed iyo madaxweyne ardayda internationalka aan wadanka u dhan ku matalo aayaha iyo danta ardayda kale. sanadkii markuu ahaa 2019 ayaan u tartamay xilkaas inaan qabto. run ahaantii like campaign fara badan dadaal fara badan kadib waan ku guuleystay xilka. dad badan tartamaya wadamada kasoo jeeda sida Suudaan, Nigeria, xataa dad cadaan ku jiro. ugu dambeyntii waan ku guuleystay xilkaas 2 sano ayaan haya kasoo bilaabato 2019 2020 iyo sanadkan ku jirno. run ahaantii xilka doorashadaas iyo gelgelin fara badan iyo campaign fara badan iyo dadaal fara badan iyo hadal fara badan iyo kadib alxamdulillah waxaan ku guuleystaa. ardaydaas marka Soomaaliyeed saa ognahay ardayda markay waliba kuwa Soomaaliyeed markay imaadaan dalkan Kenya inay wax ka bartaan way ku dhibaatoodaan xaqiiqdii. adinka ka maamul ahaan maxaad ka saacideysaan oo ka caawisaan? والله waxaan ka saacideynaa kow inay helaan admission jaamacadda oo fududeynaa. kadib markay helaan ay ku guuleystaan inay helaan admission jaamacadda markay helaan waxaan ka caawinaa soo gelitaanka si wadanka soo gali lahayn fiisaha wax walba passport iyo student passka wax walba ka caawinaa. kadib markay jaamacad imaadaan waxaan ka caawinaa registration of fududeynaa si xafiisyada ugu dhitoonin maadaama sometimes language error uu jiro qaar xafiisyada ay ku hadlaan Kiswahili raka baan Kiswahili garaneyn. taasna waan ka caawinaa si registration ugu fududaan lahaa. waxaan kaloo ka caawinaa kadib waxaan u koreynaa qolal iyo meel ay degaan waa meel markaan dejin kadib waxaan ka caawinaa haddana inay helaan student pass ee wadanka ku joogi lahaayeen si ayagoo freedom la xirin sharci la weydiinin oo ka caawinaa iyo si ay helaan KRB-kooda bangi aan furno account si ay lacagtooda u gashtaan wax baan ka caawinaa. haatan meesha ku suganahay Juja Town waxaa ku nool oo aan la soo kulmay arday Soomaaliyeed oo iskood inta u soo degeen. saa ognahay raggaas isliiw way ka soo tageen ardaydaas oo meeshaan ku nool yihiin. caqabadooyin way sheegeen naftirkooda inay caqabadooyin jiraan. adinka ahaan maamul ahaan maxaad ka caawisaan dadkaas ardaydaas meesha ku nool hostelka? والله waxaan ka caawinaa galaasi waxaan siinaa jirta oo la dhahayo preaching aan ku barno luqadaha wadanka qaasatan luqadda Kiswahiliga si ay u sameeyaan isdhexgal bulsho ee dadka bulshada wadanka u dhashay u dhexgalaan. waxaan kaloo ka caawinaa run ahaantii inaan ay helaan qolal ammaan ah si maadaama wadanka u dhan inay qamaankooda iyo security-gooda aan highly waan fiirnaa waana protect si fiican. wax walba u baahdaan waan ka caawinaa sida u baahdaan student pass hadii u baahdaan saaciidin kale oo jaamacadda oo sabsan wax walba xafiisyada saaciidin oo baahdaan ayaan waan ka caawinaa sidoo kale. waxaa tahay wiil Soomaaliyeed ee hadda xilkan hayo ma haminaysaa xil ka sii weyn inaad qabato? والله رجيدة واسيداس ورجينا يا إن سياسة هر أسيب قلو أو حل كان حل كوين بإنها قبته قاصدا إن حلوين كقبته دل كذا الصوماليات ما دام من الصومال ولا هاي الصوماليين يعني جعلان لها إن ودن كذا ما من الحل أنت قبته سي أن تذكر شيء أن كسوجي أن دفع وعلى. guud ahaan ardaydiina waxaad ku nooshiin dalkan Kenya oo dal bulshad qowmiyad kala duwan ay ku nool yihiin kala dhaqana. adinka ahaan maxaad ka baratay dalkan inta ku noolaydeen? والله قاصدنا أني هان دكان وقت هوري أنا صوت قلي حتى دوسي هو دوسي ده جامعات دكان كوب قاتي دكان دقن كيانكا سبعنا ودح قلي لو قد دام برتي دكان كودام برتي حتى عنتو دام برتي ما شاء الله هذا ودد ونكسر مثل ده حاجة سودوينتا أد بأول نسيهن ودد قلب فوران كحاجة دست حاجة شين سحاب أنا قطان rahantii waxbana ka bartay faa'iido
ardayda Soomaaliyeed waxa ku jira arday qaxootiga oo xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma laga keenay saa ognahay xeryaha Dadaab iyo xeryaha qaxootiga aad soo xiriga looguma hadlo oo ardayda way ku waxoogaa la qabsiga dhaqankan aad ay ula adag tahay taa ayadana maxaad ka qabataan oo ardaydan aad ka saacidaysaan asiyan hore kugu sheegay waxaan ku dhahay galab walba waxaan bixinaa waxa la dhahayo preaching oo ardayda wadanka u dhalan aan ku siino cashi galaas Kiswahili luqadda Kiswahili lagu baro si Kiswahili u bartaan bulshada dhex galaan ayaga maqadantooda u sheegtaan aan ku barnaa qaasatan in maad aashid qaxootiga bino badan jira qaxootiga soo jeeda oo jaamacad dhigto qaybna kamid ah kana mid ah hay'adan ardayda kamid ah waxaan kula ka caawinaa movement passkooda hay'ad ay jirtaasiiso movement passkooda laakiin dad qaar waxa jira qaxootiga ardayda kamid ah oo kin baasaboor wato wadankooda dadkaas waxaan ka caawinaa inay ka maarmaan marba inay qaxootiga u laaftaan dib inay ka maarmaan waxaan ku caawinaa inaan siin student pass oo dawladda Kenya ay siiso waxaan ka caawinaa inay helaan sidoo kale kurkooda aad ugu dambeyn ardayda Soomaaliyeed iyo dadka ku daawanaya maxaad leedahay walahi waxaan leeyahay hada jaamacadan Jomo Kenyatta jaamacadaha kale way ka duwan tahay wadanka ku yaalo for example tusaale ahaan hadaan ka bixiyo ardayda dhigato jaamacadan KU marka fiiriso student card ay wataan la siiyo iyo lacagta ay bixiyaan jaamacad lacagta ay bixiyaan tuition ay bixiyaan way ka badan tahay way ka duwan tahay lacagta ay bixiyaan ardayda u dhalatay laakiin jaamacadan Jomo Kenyatta University of Technology waxay ka wanaagsan tahay malaha farq u dhaxeeyo ardayga ka soo jeeda wadan kale iyo ardayga u dhashay isku lacag ay bixiyaan wax ka duwan malaha student card-ka hal nooc waaye foreign iyo national kuma kala qorno laakiin wasdhaxda adoo la fahmaynin la ogaanaynin dhex gali kartaa dadka jaamacadda dhigto oo ayadoo dareemin inaa wadan kale ka soo jeedo aad iyo aad baad u mahadsantahay ugu dambeyntii ma laga yaabaa in ardaydan Soomaaliyeed oo magaalada banaankeeda degan ee aan sidaas caanka u ahayn uu ka soo baxo madaxweynaha mustaqbalka dalka Soomaaliya Cabdiwahaab ayaa inooga jawaabaya waa macquul lama oga wadanka ama dunida meel alaaba meesha uga nool yahay madaxweynaha ka soo bixi doona wadanka Soomaaliya ama wadan kale taba marka la yaab ma noqonaysa haddii bari ka maalin la arko arday ka imaaday jaamacadan oo noqonayo madaxweynaha wadanka Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantahay